ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa jawaabada ka bixiyay hadaladii ilqaaf oo ka soo yeedhay taliyaha ciidanka maamul goboleedka Puntland abaanduulaha koowaad ee ciidanka qaranka Soomaaliland Cabdirasaaq Siciid Bullaale oo ay hareero fadhiyaan saraakiil kale oo ka tirsan ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta taliska ciidanka qaranka Soomaaliland ee caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ayaa ka jawaabay hadalkaasi ilqaafka ee ka soo yeedhay taliyaha ciidamada maamulka Puntland hadalkaasi oo kaga dhawaaqay ayuu yiri baran isagoo u aqli celiyay isla markaasina si cilmiyeysan ugu tilmaamay fartana ugu fiiqay xaqiiqada dhabta ah waxa ay tahay una aqli celiyay waxaan ka jawaabaynaa hadaladii deelqaafka ahaa ee runtii taliyaha ciidanka Puntland oo bisha 5teedii baran kaga hadlay inuu baran ku sheegay caasimadda labaad ee Puntland maanta ka hadlimayno Soomaaliland inay baran tahay in kale laakiin waxaan u sheegaynaa taliyaha runtii hadalka iska wada hadaaqa in boosaaso xadku uu jiro 15 kilomitir qardhana uu jiro 7 kilomitir garowna uu jiro 5 kilomitir runtii waxaan la baro ogow xafid juqraafikali dalka leedahay ciidankiisa waan xukumaa xadkiisa baro xuduudda Afrika haddaan hadal kale oo soo qaatay si uu dhigo isir iyo arrimo hore oo ay ku daaleen runtii dad hore oo lahaa taliyaha hortaajiraba uu ku daalay arinta xuduudda Afrika kuma dhisna qabiil iyo isir nin ama taliye ama mas'uul ilaaminayo dagaal oo waarag sheeganaya malaha dad waarag baanu ahayn balaayada malaha waxba badan kama yaqaan annagu dagaal ma ilaamino 30 sano ama 50 sano runtii 30 sano ka badan ay ciidanka Soomaaliland jiray maalin qolo shaashadaha iyo caalamkana laguma hayo annagu dagaal ilaamin haddana ilaamin mayno xiisano nooma hayo dagaal balaayo waxay tarto waa naqaana waxaanu leenahay waliba waxaanu uga digaynaa oo ka waaninayna runtii colaada iyo balaayada horinayo reer baraneedna waxaanu leenahay reer baraneed shacab iyo ciidanba waa ummad reer Soomaaliland meelaha kale oo taliyuhu lahaa afka ka lahaa deegaano u dhowaan marayaana runtii waxaan lahaa uu qoomamayn doona arinta iyada uu qoomamayn doona uu ogaan doona talaabada laga qaado runtii waxaan kaloo dib ugu noqonayaa reer badaneed waxaan leeyahay dagaalka xingalool iyo niman ku furi dooni iyo ku rayn bay Soomaalidu ku tilmaantaa meerkii hore meesha ka tagay waa garanaysaan oo marka la kala baro way soo noqdeen way ogtihiin oo ninka xagga taga mushaar ma helo ciidankoodu wadadu jaraa caalamku waa wada og yahay ciidan dhisan maaha oo xuquuq dhisan leh oo runtii ay ku xisaabtamaan oo ninka shaqaalaha ama ciidankii dee xuquuq buu leeyahay mushaar buu leeyahay malaha oo la socdaan caalamku waana wada ogyihiin ummaddu inay 6 bilood aanay helin kuwii hadda tagaa soo noqday marka waxaan ku soo goyn lahaa hadalkayga ninaan ku furi doonin iyo ku runtii waxaan qodobka labaad kaga hadlayaa waxaanu abaanduuluhu intaasi ku daray in Soomaaliland caalamka dhan og yahay in aan wax al-shabaab xidhiidh la lahayn isla markaasina ayna deegaanadeeda iyo xuduudadeeda midna aanay ku sugnaa karin balse taliyuhu uu moogan yahay ayuu yiri abaanduuluhu waa sida uu hadalkiisa u dhigay in goobta uu ku sugan yahay ay kooxaha al-shabaab ay hoos fadhiyaan isla markaasina ay ka taliyaan goobaha qaarkood balse aanu garanaynin ama aanu aqoonba u lahayn kala warhaynin ninka sheeganaya taliyaha ciidamada maamulka Puntland waa sida uu isagu tilmaamay waxaan ka jawaabaynaa hadaladii deelqaafka ahaa ee runtii taliyaha ciidanka Puntland oo bisha 5teedii baran kaga hadlay oo ahaa inuu Soomaaliland ku tilmaamay al-shabaab iyo Soomaaliland ay walaalayihiin ama iskaashadaan taa haddii aan ka jawaabo runtii caalamku uu og yahay ummadda reer Soomaaliland ama dawladda reer Soomaaliland inay aanay al-shabaab iyo burcadbadeed midna aanay runtii saldhig ku lahayn deegaanna ku lahayn xiriirna aanay la lahayn isku meelna uga soo jeedaan kana caagan yihiin balse taliyaha waxaan oran lahaa hoos u eg deegaankaaga halkay degan yihiin iyo intay ku jiraan
iyo inta goobooday ku leeyihiin halka aad sheeganayso iyo halka aad leedahay ciidanka aad xukunto hoostooda intay u jiraan iyo halkay degan iyadoo caalamkooda og yahay bal hoos u eega deegaankiisa malaa ma ogey abaandullaha oo maamulka Puntland iyo taliyaha ciidankaba u diray digniin culus ayaa tilmaamay in ay ka qawmamin doonaan hadallada qaarkood waa sida uu isagu sheegay runtii waxaan qodobka labaad kaga hadlayaa meelaha kale oo taliyuhu lahaa afka ka lahaa deegaano u dhow baan marayaana runtii waxaan lahaa uu qoomamayn doonaa arrintaa iyada wuu qoomamayn doonaa wuuna ogaan doonaa waa maxamed xasan sheekh maxamed Jubba